hadda xeradooda aan dhex joogno maanta aan ku dhex feeleen ciidankii kale oo shacabka u shaqayn lahaa ayagoo dariis qabo oo bistoolado wato oo katiinada gacmaha ugu xiran yihiinna waa ciidanka Soomaaliyeed ciidanka ugu horeeya la aasaasay waxa waaye booliska Soomaaliyeed ciidanka xabsiyada dadka ku hayn lahaa ayagoo qoryo haysto iyo ayagoo katiinada watana waa ciidanka asluubta Soomaaliyeed laakiin nimankan inay hubaysnaadaan ma ahan jirin duruufta lagu isku hubay khibrad iyo aqoon iyo tababar dheeraad ahna ciidamada Soomaaliyeed waa dheerihiin oo ciidamadaas kale saddex ciidan oo kale uu dheeri siyaasad bay ciidamadan ka shaqeeyaan ciidamada kale siyaasad kama shaqeeyaan waxaa marka u baahannahay sida uu mustawihiina yahay qorigana ay duruufta kugu dhiibtay in shacabkan iyo dadkan loogu shaqeeyo ee qaranimada intaas kadib aniga waxa idin minado xaalad ay taagan tahay 8 bilood magaaladan ka taagneed dhufaysay la isku horqortay maalin dhowtaa magaalada waxaan la yaabanaa labada nin oo gudoomiyaasha isku haysatay iyo ninka odayga General Jamaal ah difaacida isku horqorteen intay la ekaayeen waqti 8 bilood soo kaadina in ku dhacdo inta markaa fiiriso shabaab inta markaa fiiriso ku kala askari oo difays ka horqortay magac kasta u yeel xaalad adag baa ku sugnaadeen xaaladii hadda ayada ahayd meel bay noo maraysaa waan idinkaga mahadcelinayaa guulahii shacabkan Soomaaliyeedna u soo hoyseen qaranimada Soomaaliyeedna u soo hoyseen waxaan rabaa inaan idin sheego kuwa naga maqan oo hadda duur ku jiro waa ciidamadeena waa mid ciidankanaga ahaa ciidamadan ka tirsanaa iyo mid ciidan walaalkiis ahaa iyo mid shacab ah oo la abaabulay oo qorina soo qaada lacagna waa lagu siinayaa liiri oo magac aan jirin oo faag ah oo waqti 14 sano Jubbaland ay ku soo nooleed ka shaqeeyay sababtoo 14 sano Jubbaland waxay dawlad ku tahay askari aan xaquuq lahayn xaq kale aan lahayn darajo aan lahayn uu ku shaqeeyo oo lacag uu ku qaatiyo kala sarreyn mushaar joogto aan lahayn xaalad adag ah maal wadan laga leeyahay gaar markii laga saaro duruufta ayada ahayd kuwii ay ka ahayo qabo oo waliba dhaqaale la siinaynin ba inta waxa loo soo xawilay waayaan lacag 200 ah iyo qorigaada soo qaado kii aan qori wadin oo ku baahanahay kale waliba qorigaada soo qaaday hadda kale tahay markii hore qorigaada soo qaaday soo sameyn markii hore qorigaada soo qaaday waa walaalahano waa saaxiibadano waa wiilashanadii laakiin ra'yi aan anfacaynin qaranimada Soomaaliyeed shacabkan Soomaaliyeed deegaanka degan inta way ku shaqeynayaan mana la aqbali karo qofkii laakiin ka soo gudbo fikrigaas intaanu la mid yahay intaanu la xaquuq yahay intaanu la aragti yahay intaanu la dad yahay ina isdilno aan dilna marabno inayna dilaana marabno laakiin waxaan ka wada hadlaynaa waxa waayo sharcigu ku soo noqdo oo dawladnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada iyo waxay intaan ilaalinayaan kale ilaaliyo shacabkan Soomaaliyeed oo deegaankan degan oo dhibanaha ah oo aan leenahay masaajidada 5 salaadood oo Ilaahay uu ku waajib yeelo qofku inuu jamacad ku tukado Ilaahay uu la amray warka oo maca raakiciin Ilaahay uu yiri oo waajibka looga dhigay inuu masaajidka jamacada aado hadduu duruuf oga haro oo xanuun oo uu salaki karin aysan jirin waxa ku u diiday oo dhibka ku hayay dhib kale ha ugu darina bal kuwaas dhibkay sameeyeen dhib ka badan bay sameeyeen saa ognahay nimankii carradan joogay taas waxay sababtay in raggiinaan ay kala jeclaado raggiinaan ay kala jeclaado ma aha qabiil in lagu kala jeclaado qarannimada in lagu kala jeclaado qabiil in lagu kala jeclaan qarannimada in lagu kala jeclaado oo kuwan la fahmo inay qarannimadii Soomaaliyeed waardeynayaan ilaalinayaan shacabkooda u turayaan kuwana shacabkooda ay cunaqabateeyeen ay dhibaato ku yihiin xarna shacabkan magaalada ku nool qofku habeenkii seexdaa subax 2 saac oo soo shaqo tagaa inta badan subax 2 saac ilaa 6 saac oo habeenimo xorriyad ay ku shaqeystaan dadkan inay helaan dukaamadooda ugu furan yihiin gabdhuhu bibtooyinka uga shaqeysanayaan baqaaradu ay ku furan yihiin magaalo kala socota ay noqoto ciidanka waardiyeynayaan oo ragga noqdo laakiin qofka hadduu u dhibsado uu yiraahdo haddaad 12 ka gaartid adiga naftaadii maalkaada waa la bilqaysanaya soo dhibaato ma halkaas la gaarsiiyay magaaladan iyo deegaanada
dadka la rabo marka inay ku soo celiyaan dadkan xorriyadoodii waa idinka waxaan rabaa marka dadkaas xorriyadoodii inaad qaadaan ilaahay inuu idinku ogaado wax dadkaas ay dhibsanayaan ciidankan insan la imaanin waxay dhibsanayaan maxaa ka mid ah xabadan dhawda aad ku haysaan dhaw qaw bay bal waxaas xabadda ma warshad baa leedihin adinka idiin soo saartay kadaa warshad haddaadan lahayn sooba gada haddaa ratida waa lagu keenay ama deeqa lagu keenay ayuha lagu keenay waa lagu keenay waa haysataay cadow miyaad ku ridaysaa shacabkaadi inaad ku rido lagugu talagal cadow inaad ku ridaa lagugu talagal maxaa shacabka marka masaakiinta ugu dhibaataynaysaa maxaa ugu xabadaynaysaa ma xabaday kaa mudan yihiin kuwan yaa waay ninka rabo hadda hooyadiisa abiisa iyo walaalkiisa inuu xabado ku riday gurigiisa yaa waay gurigiisa ninku intuu dhex istaagay carruurtiisa islaantiisa xabadayna yaa waay kuwa xabadaynaysaan marka soo kuwa ma dhalin labadan askari isdaba fadhiyaa mid dhalay midka aad xabadaynaysid oo marka aad xabadda ku ridaysid wuu la dhashay wuu dhalo asagii baa dhalay ama waa gabadhiisii ama waa wiilkiisii ama waa hooyadiis ama waa walaashiisii ama waa aabihiis ama waa adeerkiis maxaa u xabadaynaya marka adigana xor muu kugu leeyahay intaasuu kuu yahay ma ballan qaadaysaan shacabkan ciidankan wasugudda qaranka intaan qori awato inaan shacabkan xabad ku ridaynin oona cadow ina ku ridin ballan qaadi kartaan yah ilaahu markhaati kow ninkii ku rido oo la ii keeno oo wasugudda qaranka waa la yidhaahdo oo ay keenaan raggii saraakiishaha maxaa ku xukumaysaan ii sheego wuxuu sharciga ogolyaha ku xukumaysaan waa mahadsantihin ilaahu markhaati ka how ilaahayow markhaati ka how intaas waa ku mahadsantihiin intaas kadib waxaan gelaynaa qoraxaan fadhinaayo xilli marka farsamo iyo shaqo ciidankan hadda waa 2 degmo ragna shaqay ku maqan yihiin weli say raboodka siiyeen saraakiisha rag baa weli shaqa ku maqan ama magaaladan ugu maqan ama magaalo kale ugu maqan laakiin 2 magaalo kala tirsantii waa laga yaabaa nin kale oo magaalo kale ka tirsan oo luuq oo kale inuu fadhiyo suurtagal laakiin waa yar yahay ama waa 1 ama 2 ama 3 garbaari qof ka tirsan inuu jiro waa 1 ama 2 ama 1 ama 3 laakiin ciidankan hadda waxaan meesha fadhiyo waa 2 degmo waa حتى هلا والله بس ده حتى إني سجين بسورة قلة هل هو لكن لو يستحي إني سجين بسورة قلة دقون كاركوت هذه ربي إنه بريتو وقت فوق هين إن شاء الله بإيمانه يعني نيكي عن حقوق لهين on system كعيدن كجرين أو ديار سنة وتوبر قبل هل كان جوجي ببرنامج كسيدة مرين دونا هدي على وإحنا نقد منا أو قلب برنامج أهنا وإيمان دونا أسكري أسحال ديس أول لما يستر دونا تسنو أيضا بالقاضي أشار رحمة وأنا ما سنتي عن رجع هين أو هو بيسن أو جوجو on حقوق لهين لكن عيدن كله شقينا مقالة هذا اللي جاب كلبرنا أو صوتكتين حردان كجرو بصورة قلة برنامجكي ما اللي توقع دين أنا مركان إيمان أي ما نكدب واحد أنا إيمادان قولدي داتبيس راكيش كهربتين إيمادان بحد وتعاقبت كده على الدورو واللي دي سراكيل سومالية ده صدق حد عيدا كسعودتين ومركان سلوكته لو سعودنا أنا إيمادان عيدا مدان أو عشان يتوصل قال هيد أنا عيدا مدو إيمادان أنا حقوقه دي حالة دو وقادان نك حقوق لهين الحقوق للسيو الله مريو كي عن داتبيس هراء الله مرين أما حقوق لهين عن قرميسين لقرميو كي قرميسنا لكن وحكي مي وحكي منا للسيو عيدا ما قبل اسمه كود اللي فهمه هاد حالدي وحالها يكون على هذا أنا صوبته هاد بينها إمادة مركي حالدي جقص كل نقط أنا مالك إيمان أي حبض باب بلاوتي ولا بلاوي حردان نعكس على قد جنا رجع جودان وتي اللي يقول أي أو دجالكوا كل عي أو دبكوا العي وحبض بلاوي إنه ممكن بديت كها وحيد مالك إيمان مالك كحاجة إن حردان كسود دجان سراكيل شغاس قفته مركي حالدي إنه فرنتي سراكيش قرباري بقول له حنلي قار كم ده شغال كقفتين عيدا بيدات بس مريان دجال ليدي وقتين حقالتين تلفون الله وهسته هدي ربي إنه بريتو وقت فوق هين إن شاء الله بإيمانه يعني نيكي عن حقوق لهين on system كعيدن كجرين أو ديار سنة وتوبر قبل هل كان جوجي ببرنامج كسيدة مرين دونا هدي على وإحنا نقد منا أو قلب برنامج أهنا وإيمان دونا أسكري أسحال ديس أول لما يستر دونا